xusan quality fast maahan quality fast in meesha magac ahaan ay u taagan tahay ee waa wax qabad anaga aan tiigsano mar walba aan ku dadaalno fakalti walba oo ku dadaalo halkay gurigan waa ka dirigteen waxa uu ka sameeyay yahay qoriga jalaatada oo markii aad cuntaan ay iska turtaan ma jiro qof intiina kamid ah oo ku fikiray qoriga jalaatada in maanta wax soo saar uu leeyahay oo tayo uu leeyahay oo meel uu soo bandhigi karo ma wax soo saari karo waakana laba qori jalaato waxa isku dajii wax kale ma aha maskax bini'aadan iyo wax lagu soo abaabiyay oo lagu soo tirbiyo oo lagu soo dhiday waxa aan booqanay Somali Commercial Bank oo aan ku sameeyay assessment building training taas oo aan fiirinay burburkii ku dhacay iyo qarashka ku bixi karo dhismihiisa iyo waxyaalaha uu u baahan yahay jecelahay in aad ila soo dhaweysaan si kelimadaha iyo waqtiga ay uga faa'iidaysano door kale oo xusuus mudan jaamacadda Frontier qof waliba ayaa garanaya doorkeeda waxbarashada bal ka waran haddaan hortiina keeno arday ka mid ah qaybta civil engineering ee ka barta jaamacadda Frontier waa semesterkii labaad keliya haddana waxay ku dhiiran yihiin in hal abuur iyo shaqo ay qabteen ay halkan inuu ku soo bandhigi doonaan waa dadaalkii macallimiinta Frontier arday laba semester dhiganaya in masrax uu soo istaago wax qabad u muujiyo shaqo loo diray soo qabtaana waa astaan u gaar ah bahda Frontier waynu leenahay waad ku mahadsantihiin saacadda ligula soo dhaweeyo أحياء وطن ورقم اليمنى كبهارا أخوتا أربية على السجان أيها شرح الدوام واو وحسي أربية يقول قرح بدن ولا شقي كم إنا نريد بكونا السنة هذا كي ملحظة وهذا ولو أربية سمع لصعد الدين ككلية ذا أستاذ عبد الرحيم ويقول لنا هاي macallin waa ku mahadsantahay sida qiimaha badan ee adiguna ardayda aad u soo saarayso waliba qayb electric ayaa la shiri doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan waxaan salaamayaa wasiirada ku-xigeenada guddoomiyayaasha agaasimaha ardayda qalinjebinta macallimiinta dhammaan kasoo qaybgalayaasha qiimaha iyo qaayaha badan oo si wanaagsan in loo dhageysanayo anigoo ah arday ka mid ah ardayda civil engineering ee jaamacadda Frontier University ahna sanadii koowaad ee jaamacadda haddana dhameeyay semester 2 waxaan rabaa inaan idiin soo bandhigo waxqabadkii aan sameeyay sanadii ugu horeysay ee jaamacadda sidaad u jeedaan boorka jaamacadda oo hortiina taagan loogada waxaa ku xusan quality fast maahan quality fast in meesha magac ahaan ay u taagan tahay ee waa wax qabad anaga aan tiigsano mar walba aan ku dadaalno fakalti walba oo ku dadaalo waxqabadkii aan sameeyay waxa ka mid ahaa guryahan aad u jeedaan indhihiina aad ku arkaysaan maahan wax meel laga soo gaday maahan wax dad kale ay soo sameeyeen xataa waxa aan jecleynay qaabkii aan u sameeynay step by step day by day inaan idin soo bandhigto project la'aan awgeed waxaan jecelnahay inaan afkeedin kaga sheegno waxqabadkii ugu horeeyay aan qabanay wuxuu ahaa kambaska jaamacadda oo aan hadda soo qaaday oo yaala jaamacadda campus 1 oo aan sameeyay asigoo ka samaysan baako weliba loo isticmaalay scale mid labaad aan qabanay waxa waaye waxa aan booqanay Somali Commercial Bank oo aan ku sameeyay assessment building training taas oo aan fiirinay burburkii ku dhacay iyo qarashka ku bixi karo dhismihiisa iyo waxyaalaha uu u baahan yahay waxa jirta dhismayaal badan oo socdo aan booqanay waxa jirta waxyaalo badan oo aan ka faa'iiday anagoo ah sanadii koowaad waxaan fahansanahay guriga foundationkiisa super foundationkiisa column
biim salooto iyo waxyaalo badan oo hadda aan soo koobi karin oo adiga ay laga yaabeen haddana waxaan rabaa inaan idinku bilaabo gurigan koowaad oo sidaad filay gurigan waa ka dirigteen waxa uu ka samaysan yahay qoriga jalaatada oo markii aad cuntaan aad iska tuurtaan ma jiro qof intiina ka mid ah oo ku fikiray qoriga jalaatada in maanta wax soo saar uu leeyahay oo tayo uu leeyahay oo meel lagu soo bandhigi karo oo marka wax soo saari karo waa kana laba qori jalaato waxaa isku dejiye wax kale maahan waa maskax bini'aadan iyo wax lagu soo abaabiyey oo lagu soo tarbiyey oo lagu soo nidaamiyey oo nala soo baray taasna waxaa waaye gurigii labaad aan sameynay gurigaas waxaa ugu talagalnay jaamacadda waxaan u geysiinay qaab frontier oo aan kasoo qaadnay FU oo dabaqi ayadana kala goosan marka laga fiirinayo buluur balaanka guriga waa ujeediin waxa uu leeyahay geedo waxa uu leeyahay xafiisyo haddii ay idiin shaqo qaybtan waxaan ugu talagalnay qaybta fakaltiyada qaybtan waxaa waaye oo hinta camal u eg qaybta macallimiinta iyo xafiisyadooda geedkan dhexdana geliyey maxaa loo geliyey waa xafiiska ardayda haddii xafiiska ardayda dhinacan aan u dhawey lahayn waxay ahayd xafiisnimo ardayda kambaskaan dhigto waa u dhaweynay xafiiska ardayda kambaskaan dhigtana waa ka dheereynay waa xafiisnimo marka si aan loo dhihin ardaygan si oosan daqiiqado badan ugu imaanin kana daqiiqado dhow ugu imaanin waxaan ka taxadirnay taas waxaan keenay dhexda ardaygan iyo ardaygan iyo ardaygan iyo ardayga inta kasoo baxaya isku waqti ay imaan karaan xafiiska taasna waxaan ka taxadirnay waxaan u sameynay baakin waxaan qaleenahay inaad arkin waxaan u sameynay baakino dadka jaamacadda soo booqanaya inay baakin waxaa u jeedin inta waxaa ku yaala laami oo jaamacadda hormarayo waxa uu leeyahay soolaro waa u jeedin gurigan waxaa ka daarmaya nolol maahan inaan nahay micnaha electrical engineering laakiin markii aad tahay civil engineering waa u khusaya beri waxaa u baahan kartaa gurigaaga in oo nin engineer electrical oo ku sameeyo electric haddii aadan wax aadan ka fahansanaynin ninka waa uu khiyaani karaa marka civil engineering anagoo ah xataa electrical engineer wax baan ka fahanay waa kana gurigan ifay ayaa u jeedin albaabadiisa waa kana fulur banaanka markaa fiirinaysa qaybtan waxaa u egtahay f qaybtan waxaan ugu talagalnay u waa ay kala go-an tahay waa isku dhajin weynay saas awgeed waana mahadsantihiin